ha iska jaahilsiin qof kuu sheegaya qaladyadaada maxaa yeelay isagu wuxuu in badan ka wanaagsan yahay kan kuu qarinaya qaladyadaada ma jiro qof aad muhiim u tahay kaagana tegayo murugo bal kun waddo ayuu u marayaa si uu kaaga baabi'iyo murugadaasi ma jiro qof kaa khafiifin kara murugadaada dhammaan waxay xiisaynayaan keliya barashadaada yaa dhegaysan doona hadalladeena innagoo ku qornay aamusnaan markaasi xuruufteenna waxay noqonaysaa mid u baahan in la tarjumo innaguna waxaan ku dhawaaqaynaa xuruufta weliba si daacad ah kuwa kalena waxay u fahmayaan si xun ha ku khasaarin nafsadaada adigoo isku dayaya xifdinta qof aanan danba ka lahayn maqnaanshahaaga aad waxba ha u daryeelin waayo quluubta qaar waxba ma dareento ixtiraam kuma maslaxeeyo dhammaan qaarkoodna kumaba qancaan qofka muhiimadda siiye ee u wanaagsan keliya adigu qof kasta sii inta uu mudan yahay waxaa aad u xanuun badan inaad siiso iyaga kalsooni indhatiran kadibna ay ku dhahaan adiga ayaa ah indhoole maxay khasaaro u ahaatay shakhsiyo qalad ku gelaya ficiladooda kadibna inaga inagu eedaynaya falcelinteena